xubnaha ka socda xafiiska imtixaanada qaranka ayaa kormeeray goobaha imtixaanada ee degmada Salaxle waxaana goob fagaara ah ardayda uga khudbadeeyeen inay iska ilaaliyaan qishka iyo waxyaabaha dhaawaca u keeni kara rajada imtixaankooda. ugu horreynna waxa goobtaasi hadalada iska daba qaatay gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Salaxle iyo gudoomiyaha goobta imtixaanaadka sida ee degmadaasi Salaxle. 19 bishii 6 2023 oo maalintii saddexaad ee imtixaanka shahaadigu socday waxa saaka kormeer kaliya loogu yiri kormeerayaashii ka socday xafiiska imtixaanaadka runtii hawsha si fiican ugu socota alxamdulillaah rabbil caalamiin iyaguna hawshoodii kormeernimo iyo waajibaadkoodii way guteen haddaan nahay degmada Salaxle waxbarashada fasalka afraad iyo fasalka sideedaadba iminka way nala joogaan ilaa saaka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii imikana waxaan ku soo dhaweynayaa supervisorka imtixaanaadka ee degmada Salaxle Mr. Abshir. anigoo magacaygu yahay Abshir Askar Maxamed ahna gudoomiyaha goobta imtixaanaadka qaranka shahaadiga ee Salaxle degmada Salaxle oo isugu jirta primary iyo secondary kana kooban 34 arday oo dugsiga dhexe iyo 30 arday oo dugsiga sare ah. waxaa halkan saaka nagu soo booqday anagoo galayna maadadii physics-ka ee dugsiga sare iyo maadadii English-ka ee dugsiga dhexe kormeerkii xafiiska imtixaanaadka ka socday kuwaas oo hawsha howlwadeenadaas oo nagala qayb qaatay labadii maado ee maanta la gelayo tadamana naga joogi doona intii horena si fiican noogala qayb qaatay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdillaahi Ibraahim Xaaji Xasan iyo Guuleed Yuusuf Iidaan Goohe oo noogu yimi kormeer iyagoo degmooyin dhowr iyo iskuulo badan soo maray isla markaana dadaal badan geliyeen qishka ay la dagaalamaan gaar ahaan moobilada iyo wixii la halmaa ardaydana wacyigelin iyo dhiirigelin siiyey. waxaan aad ugu soo dhaweynayaa inay maantana naga sii joogaan marar badan oo dambana soo maraan. waxaan ka mid ahay ardayda form 4 ee dugsigan Salaxle ee galaya imtixaanka. aad baan ugu faraxsanahay inaan imtixaankii doon noo bilaabmay noona socdo. waxaan rajaynayaa insha Allah guul. Alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Saamiye Cumar Samee. waxaan rajaynayaa guul iyo gabadhnimo insha Allah waan guulaysan doonaa. dhanka kale waxaa hadalada iskaga dambeeyay Guulada Gooha Iidaan iyo Cabdillaahi Ibraahim Xaaji Xasan oo ahaa mas'uuliyiinta kormeerayay imtixaanka waxaana aad ula dardaarmeen ardayda iyo waalidiintooda. soonahay degmada Salaxle goobtii lagu qaaday xafiis imtixaanaadka qaranka dugsiyada sare iyo dhexe labadaba fasalada aydka iyo foorka anagu waxa kormeerka socday wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka qaranka. waxaantii waxaan ugu nimid ardayda oo ku jirtay fasaladii saaka si fiican oo habsami lana ugu waday imtixaankii oo socota wax dhibaatooyin bisleeyay ka jirin runtii aad u dadaalaysa ilaahina lamaan uga barinaa ardayda inay wada guuleysato Soomaaliland iyo ardaydan maanta la joogna labadaba maalmaha soo socda iyo inta kormeer ku jirana runtii badan ku soo noqon doono kana warahayn doono kana wacyigelin doono wixii maxay haday qisha ama qaladaada waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inaan degmada saaka ugu nimid arday aad u fiican dadaalaysa wax dhibana aan kala kulmin supervisorku hawshiisa si fiican u wato. marka waxaan leeyahay guul baan rajaynayaa insha Allah inay dhammaan wada guuleystaan. salaamu calaykum rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. aad iyo aad u mahadsan gudoomiyaha degmada gudoomiyaha waxbarashada degmada Salaxle iyo gudoomiyaha goobta imtixaanaadka shahaadiga ah ee Salaxle mudane Abshir. waxaan aad iyo aad isagana u salaamayaa Guuleed Yuusuf Iidaan oo maalmihii u dambeeyay 3 maalmood imtixaanaadka shahaadigii socdayba aanu howlaha kormeerka xafiiska dhinaca imtixaanaadka ku wada jirnay. waxaan hambalyo u dirayaa guud ahaan ardayda Soomaaliland ee imtixaanaadka ku jirta gaar ahaan arday kasta oo dadaalaya oo ay ka go'an tahay inuu aqoontii iyo dadaalkii uu soo muujiyay uu ku meel maro. waxaan halkan ugu digayaa baa ku dirayaa oon wacyigelin halkan ka dirayaa guud ahaan ardayda Soomaaliland ugu digayaa ku dhiirigelinayaa
inay waxaan ku muxuu ka fogaadaan aaladda teknolojiyada la isugu gudbinayo qishka lagu sameeyo moobilka kaasoo farabaas ku hayo runtii ardaydeena waxa dareemaysaa deegaano runtii fara badan oo ardaydeedu ay magansadeen ama ay mas'uuliyaddu ku lahayd iyo xilkii ku lahayd isticmaalayeen baa noqday to xaqiiqii wixii la iska daayay in aaladaas oo qura lagu xisaabtamayo oo waxaan ku leeyahay muxuu ahaa aad dareemayso sida uu afo u yahay waxa dareemaysaa arday tira yar oo waxaan ku iskuulkooda laga yaabo inay yihiin boqol arday laga yaabo hoose dhixiyay sare hadii la isku daro oo waxaan ku leeyahay muxuu ahaa markaad mid dhaafto aad kalabaad moobil ka soo saarayso markaad saf dhaafto aad kale ka soo saarayso markaad saf dhaafto aad kale u gelayso waxa dareemaysaa markaan meesh kaligeed badanaysantay moobil kasta oo qabataa khadkiisu uu furan yahay waxaana ku socda fariimo dibadda kaga imanaya runtii wax aad iyo aad loola yaabo weeye waxaan halkan ka bogaadinayaa oo aan hambalyo uga dirayaa runtii howlwadannada xafiiska imtixaanaadka qaranka meel kasta ay ku sugan yihiin imtixaanaad ku wada waxa kale aad iyo aad u bogaadinayaa madaxda xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo madaxda wasaaradda waxbarashada guud ahaan oo muujinaya dadaal inay howlihii qaran ay dalka u hayeen waajibkoodii iyo mas'uuliyadoodii iska saaraan ardayda reer Soomaaliland guul baan u rajaynaynaa guud ahaan qarankeena guul baan u rajaynaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ardaydeena garansiiyo in qof waliba waxaan ku leeyahay xilkiisa iyo mas'uuliyadiisa isa saaro oo uu arday qaran noqdo oo hami qaran xambaarsanaado oo himilada rugsan xambaarsanaado isla markaana uu ka feejignaado ka fogaado qishka iyo aaladda waxaan ku leeyahay la isugu gudbinayo moobilada mar labaad iyo mar saddexaad ayaan howlwadannada xafiiska imtixaanaadka qaranka ay hogaaminayaan Daawud Axmed Faarax iyo Xasan Maxamed Qalinle oo hal habeenba qaranka heegan ugu runtii aan bogaadinayaa inta kale tiimkayga hoos joogta howlahan la wada shaqada iyaguna awaamirta fulinaya iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Axmed Maxamed Deriye ciidan Torno aad iyo aad wasiir ku-xigeenka Xakiin Saciid Bustaare Cabdirasaaq Saamo Cumar agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaanba howlwadannada wasaaradda waxbarashada ayaan aad u bogaadinayaa waxaan leeyahay Allah inagu asturo mas'uuliyadda culus aynu wadno iyo hawsha qaran aynu hayno wadnaasintii